inta wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aan caaw barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo war cusub ka soo saaray doorashada boobka ah ee ka socota dalka, digniin adag oo u diray madaxda maamul goboleedyada iyo natiijada kulan uu la qaatay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaan idiin soo gudbin doonaa. wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Hirshabelle oo gaaray guushiisii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay xilka maamulkiisa kadib heshiis culus oo uu maanta la gaaray odayaasha iyo waxgaradka beesha Xawaadle. haddaba faa'iido noocee ah ayuu madaxweyne Farmaajo ka helayaa heshiiskan? madaxweyne hore Xasan Sheikh oo bixiyay xog sir ah oo ku saabsan waxa ku qasbay in uu mar kale u tartamo xilka Villa Soomaaliya iyo eedayn la yaab leh oo u jeediyay madaxweyne Farmaajo. wararkan kalena waxaa kamid ah murashaxiintii ugu badneed oo hal mar la shaaciyay doorashadooda iyo xildhibaan Dalxa oo si bahdil ah looga reebay tartanka doorashada golaha shacabka xilli lafta gareen uu qaadayo tallaabooyin lama filaan ah, iyo kooxda shabaab oo bilowday qorshe ay ku carqaladeynayso doorashada dalka ka soconaysa. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah, waana habeen talaado ah 8 bisha 2 ee February sanada 2022. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aynu ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawade ka qayb qaada dib-u-dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane. fadlan nala faafiya wararkan oo gaarsiiya saaxiibadiinna idinkoo ku shargareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeenna. Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa war cusub ka soo saaray doorashada boobka ah ee dalka ka soconaysa. waxa uuna kulan la qaatay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal Maxamed Cawil Warsame oo dhowaan loo doortay xilkaasi. kulanka ayaa waxay uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka doorashooyinka, gaar ahaan midda golaha shacabka oo ka socota magaalada Muqdisho iyo maamulada kale ee dalka. sidoo kale waxaa kulankan diiradda lagu saaray sidii ay guddiga qayb uga noqon lahaayeen hufnaanta doorashada maadaama ay qabtaan dacwadaha iyo cabashooyinka ka dhasha doorashada. Ra'iisul Wasaaraha ayaana ka digay in doorashooyinka ay noqdaan kuwo boob ah. kulanka waxa uu ku saabsanaa isxogwaraysi ku saabsan arrimaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka, hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo kulankaas looga hadlayay amaba lagu faahfaahinayay. guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ah guddi lafdhabar u ah doorashada, waana guddiga ugu dambeeya ee go'aan ka gaaraya natiijada doorashada xildhibaanada la doortay. guddiga ayaa dhowaan doortay guddoon cusub iyada oo Maxamed loo doortay gudoomiye. waxa uuna ka mid ahaa xubnihii uu Roble ku bedelay 7 xubnood ee u haray amaba laga saaray guddiga xalinta khilaafaadka doorashada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu digniin u diray maamul goboleedyada dalka ka jira, waxa uuna markaasi kala hadlay in ay doorashada markaa noqoto mid daahfuran, inkastoo doorashadu ay iska tahay mid aad loo boobayo. doorashada golaha shacabka oo weli kasii socota dalka ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 25 February 2022 sida qorshuhu uu yahay. waxaana shirkii ugu dambeeyay ee doorashada looga hadlay islamarkaana ay qabteen madaxda golaha wadatashiga qaranka looga hadlay in lasoo gabagabeeyo 25 Febraayo. qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. markaana aynu eegno dhinacaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Beledweyne. Cali Guudlaawe ayaa gaaray guushiisii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimo ee maamulkaas, markii uu maanta heshiis culus la galay beesha Xawaadle ee aadka u diidaneyd nidaamkiisa. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo beesha Xawaadle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka heshiiyay khilaafkii u dhaxeeyay beeshaas iyo maamulka Hirshabelle. kulanka oo saacado badan socday ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray tabashadii iyo diidmadii ay beesha Xawaadle ka qabtay maamulka Hirshabelle. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in nabadoonnada iyo waxgaradka beesha Xawaadle iyo maamulka Hirshabelle ay ku heshiiyeen in maanta wixii ka dambeeya laga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka dowladnimada. arrintan ayaa waxay faa'iido weyn u tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ku xisaabtamaya kuraasta 25 ah ee taalla magaalada Beledweyne. si rasmi ah looma oga waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxweynaha Hirshabelle iyo beesha Xawaadle oo muddo diidaneyd in uu yimaado magaalada Beledweyne, balse isagoo halkaas ugu dambeyntii gaaray. khilaafka beesha Xawaadle iyo maamulka Hirshabelle ayaa yimid kadib markii beesha Xawaadle laga wareejiyay xilka madaxweynaha Hirshabelle oo ay horey u haysteen, isla markaana loogu bedelay
ku-xigeentaasi oo beesha si weyn ay uga hortimid waxaana hadda magaalada beledweyne ka soconaya qorshe ku saabsan in isbedel halkaasi laga sameeyo islamarkaana doorashooyin ay halkaa ka dhacaan. barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Warqaa TV ayaad naga daawanaysaan. haatanna aynu eegno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa ka hadlay arrimo ku saabsan sababta uu ugu tartamayo mar kale xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu mar kale isagu isku soo taagay xilka ugu sarreeya dalka, waxa uuna doonayaa in uu isbedel sameeyo. waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka dambeysay in madaxweyne Farmaajo uu isagu markaasi si nabdoon kula wareego dalka hogaamintiisa. waxa uuna sheegay in madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dowladdiisu ka gaabiso waxyaabo badan oo u baahnaa in horey loo sii wado. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dowladdii ka dambeysay ku dhaliilay inaysan dowladnimada ka sii anba qaadin halkii uu uga tegay, ayna ku mashquuleen dana gaar ah iyo xifaaltan siyaasadeed. waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimada ee la filayo inay qabsanto ay halbeeg u noqon doonto midii hore uu markaasi qabtay, taasi oo lagaga guuleystay uuna ku soo baxay madaxweyne Farmaajo. waxa uu bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday in aysan ku kadsoomin marin habaabinta ay xulafada madaxweyne Farmaajo ka wadaan baraha bulshada, midaasi oo ay markaa ku bixiso dhaqaale fara badan sida markaasi uu aaminsan yahay. waa xagaag haatanna haddii aynu fiirino dhinacaas iyo magaalada Barawe waxaa la shaaciyey doorashada xubno markaasi noqonaya amaba la doonayo in laga dhigo xildhibaano cusub oo ka mid noqon doona baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. arrintan oo markaasi noqotay mid markaasi aad loo hadalhayo, waxaana la shaaciyey murashaxiintii ugu badneed ee abid markaa doorashada hadda soconaysa markaa lagu dhawaaqo in ay tartamayaan, waxaana si bahdil ah looga reebay tartanka doorashada xildhibaanada golaha shacabka Professor Maxamed Cumar Dalxa oo isagu 20 sano xildhibaan ahaa. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shaaciyey murashaxiinta isu soo sharaxay 13 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Barawe. murashaxiinta uu guddiga shaaciyey ayaa tiradoodu waxa ay tahay 26 murashax, waxayna doorashada kala markaasi ka kala qabsoomi doontaa amaba ay kala qabsoomi doontaa maalinta Biritaa ee Arbacada oo la dooranayo 7 kursi iyo Khamiista oo la dooran doono 6 kursi. waxaa xusid mudan in kursi waliba oo ka mid ah 13 kursi ee Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ay u tartamayaan kaliya 2 murashax oo qaarkood ay yihiin kuwii hore ugu fadhiyay kuraasta. magaalada Barawe oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa maalmihii dambe ka socday diyaar garowga doorashada oo la filayo in si rasmi ah maalinta Biritaa ay uga qabsoomto. doorashada golaha shacabka ee dalka ayaa dardar ku socotay inkastoo cabasho laga muujinayo. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo isagu markaasi ah xildhibaan 20 sano ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in doorashadaasi laga reebay islamarkaana loo sheegay in uusan ka qayb gali karin tartanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan. waxa uuna tilmaamay in ergadii saxda ahayd ma ahane erga kale ay iyagu markaasi dooranayaan. warar la helay ayaa sheegaya in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu ka reebay Dalxa in uu sanadkan tartamo xilli la ogaa in Dalxa nabad iyo nolol tiirarka ugu muhiimsan uu ahaa. madaxweyne Farmaajo ayaa laga yaabaa in xil safiir uu ku abaalmariyo Professor Dalxa iyadoo xildhibaannimada laga hor istaagay sanado badan kadib. arrintaani oo noqotay tallaabooyin lama filaan ah oo la qaaday. sidoo kale kursiga tursigiisu yahay 161 waxaa sanadkan mar kale ku tartami doonin Sayid Cali Cabduqaadir Macalin oo 5 sano la soo dhaafay isaguna kursigaasi ku fadhiyay. isbeddello waaweyn ayaa laga dareemayaa doorashada dalka iyo waliba sidoo kale sida ay hadda wax ku soconayaan. ugu dambeyntiina kooxda Al-Shabaab ayaa waxay bilowday qorshe ay markaasi ku carqaladaynayso doorashada dalka markaasi sanadka 2022 dalka ka qabsoomaysa. warar la helaya ayaa waxay markaasi sheegayaan in Al-Shabaab ay wadaan qorshe markaasi ay ku doonayaan in ay ku beegsadaan ergooyinka wax soo dooranaysa si markaasi ay wax uga dhibaateeyaan doorashada dalka ka soconaysa. Al-Shabaab waxay horey bayaan uga soo saareen doorashada dalka iyaga oo markaasi ku baaqay in loo baahan yahay
in laga feejignaado doorashada golaha shacabka iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya ay ku tilmaameen mid sharci darro. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan hor la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.